صلى النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا ولا فربنا فائدنا ولا فائدوين كيس waxa kamida toddobadan arimood marka uu horeyso qofka nabiga ku saleeyaa wuxuu faa'iideeyaa ilaahay amarkiisa inuu qaato ajrigi allana uu helo akhlaaqdi ilaahay iyo malaa'igtana uu qaato ilaa nabigu wuxuu takhalluqu bi akhlaaqillah ilaahay akhlaaqdiisa qaat ilaahay iyo malaa'igtiisi way ku saleeyeen marka hadaynu inaguna ku saleeno rabbi baynu ku raacnay iyo malaa'igtiisa waxa uu qofkii faa'iideeyaa inuu 10 jeer ilaahay ku saliyo qofka nabiga ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ilaahay malaa'ig ilaahay saligiisuna waa inuu naxariisanayo adoonka ama uu amaanayo الثناء عليه في الملأ الأعلى بين أيمada qaarkood caalamka kore ayuu ilaahay ku amaanaya iyo malaa'igta dhexdooda marka inuu ilaahay ku amaano 10 jeer ama uu ku naxariisto wax weyn weey waxa labaadoo lagu helayaa shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo abaalaynu ku qabno qofka markuu muadinku aadaamo intuu yiri oo kala ka daba yiraahdo igu saliya halat lahu shafaacati shafaacada ila usugantoo waajibtay buu nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa ka faa'iido hamigu ilaahay kaga yareeyaa qofka humuum badan baynu xambaarsannahay waxba inagu si ah culaysyo badan baa dadka saaran iyo diiqado waxyaabaha ilaahay uu ku fududeeyay ayuu kamid yahay saliga nabiga asxaabigii Ubay ibn Ka'b markuu nabiga ku yiri waqtigayga saligaagan ku qaadan hamigaaga la kaafiib hamiga laga dul qaadi waxa afraado aynu kaga ka faa'iideynaa waa sabab liqurbi al-abdi minhu yawm al-qiyamah adoonka uu ka sali badan yahay buu nabiga ugu dhowiyay maalinta qiyaamaha awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salah وحديث صحيح الترمذي كسوغان maalinta qiyaama cid ay igu dhowi waa cid ay igu salli badan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa shanaad oo ka faa'iido ah waa sabab raddi rasuul sallallahu alayhi wasallam fi raddihi waa inuu nabigu ka qaado ay sabab noqonaysaayo mar qof kasto ay igu salliyo buu nabigu salligiisa markuu igu salliyo ilaahay ruuxdaydu uu soo celinaya ana ka qaadaya ومركا النبي صلى الله عليه وسلم سيغا كو جوابيا روايه لو حيد اما حديث كلو اسغنا صحيحه ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني السلام من امتي ملائكه دولك wareegaysa buu ilaahay leeyahay